guddi ku howlan dib u dhiska wada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo ee gobolka Mudug ayaa ku baaqay in laga gacan siiyo dhameystirka dhismahaasi oo haatan dadaalkiisa uu socdo. Wariyahana Maxamuud Cabdi Diirsha ayaa qodoboreedkan inoo soo diray. guddiga ku howlan dhismaha wadada ayaa dhowrkii bilood la soo dhaafay waxay ka shaqeynayeen inta u dhaxaysa deegaanada Gawaan iyo Wisil oo ah ilaa 30 kilomitir waxaana hadda ay maraysaa gabangabo iyadoo ay ku sii xigi doonto masaafada u dhaxaysa Hobyo iyo Gawaan oo yana ah 30 kilomitir halkaas oo ah meesha ugu daran ee gaadiidku ku dhib mutaan. Cabdulqaadir Maxamed Cusable oo ah gudoomiyaha guddiga gob ee mashruucan maamulaya ayaa ka waramaya sida hawshu u socoto. wadadan ciidda aad arkaysaan waa bacadkahay hawsheedu aad bay u adag tahay waa ciiddaas oo kale oo dhulka taala marka biyo lagu shubo si safartii milmaysa marka waxaa qasab ah in dhowr sentimitir dhulka hoos u qodo oo aad soo buuxiso dhagax iyo carrakaawo ku buuxiso dhowr sentimitir 32 sentimitirna aad kor u soo qaado si ay biyuhu uga kala rogmadaan marka dadka aan hawlaha wadooyinka aqoon waxay yiraahdaan waa iska fadhiideen wax midna qaban laakiin dadka yaqaanahay aad ay loogu bogaadiyaan waxa qabadka iyo hawsha iyo meeshan soo gaarsiinay ama dadkii arkoo yimaada waxaan ku doorin lahaa walaalaha inay in badan soo booqdaan oo yimaadaan waxba ka qaadan mayso. dabeecad ahaan dhulka mashruucan dhismaha wadadu ka socdo waa bacaad dooxooyin iyo dhagax bilo ka hor gaadiidka yaryar ayaa si dhib leh ku marayay halkan balse maanta waxay u muuqataa mid isbedel weyn ka muuqdo oo shaqo weyn laga qabtay. waxaa ka shaqeynaya gaadiid culus iyadoo mashruucan oo dhaqaale badan ku baxaya oo u baahan yahay in laga wada qayb qaato. wasiirka ganacsiga Galmudug Cabduladiif Cabdullaahi Warsame iyo wasiirka dastuurka dib u heshiisiinta Galmudug Cusmaan Maxamed Cali Socdaal oo mashruucan kormeeray ayaa ku baaqay in la taageero guddiga ku howlan dhismaha wadadan. dekad haddii laga shaqeynayo ama ha noqoto magaalooyin haddii camir maayaan waa infrastructure kaabayaasha dhaqaalaha waxa ugu muhiimsan waa wadooyinka wadadanina ma aha wax uu ama qabiil leeyahay ama maaragtay ii sheeg meel kastoo wadan marto qabiil baa dega laamigaas qolobo meel bay degtaa laakiin Soomaaliya waxay hadda ka dhiman weyday waa laamigaas dheer marka haddii laamiyada la badiyo wadooyinka noocan oo kale la badiyo dadkan xataa colaadaha yaraanaya waxa badanaya ganacsiga badanaya waxbarashada badanaysa ummadaha soo noqonaya badanaya marka meeshaan oo kale runtii waa tusaale fiican runtii marka lama jiro waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta taaganahay mashruuc ugu qiimaha badnaa oo Galmudug Galmudug ka socda ama la dhigi karo gobolada dhexe Soomaaliya inaan maanta hor taaganahay oo aan joogno mataqaanaa shaqadiisii aad ugu faraxsanahay marka koowaad marka labaad waxaan rabaa inaan u bogaadiyo professorka Sharwac iyo guddiga horumarinta gob waxaan ay Soomaaliya u bilaabeen ama dadka Soomaaliyeed wada u bilaabeen inay yihiin wax maaragtay runtii jiilka dhaxli doono una baahan maaragtay dhiirigelin waxaan leeyahay anoo ka mid ah dawladda Galmudug haddaan anaga dahay dawladda aad iyo aad mashruucan ugu faraxsanahay qaybna uga qaadan doonaa baaqayga ugu dambeeya waxa weeye community-ga Soomaaliyeed oo horumarka raba horumarka jecel iyo gaar ahaan community-ga Galmudug in mashruucan mashruuc ugu qiimaha badnaa yahay noogana baahan yahay maanta hiilka ugu fiicnaa. Maxamuud Cabdi Diirshe warbaahinta qaranka Cadaado.